إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك. إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa duruusteennii taxanaha ahayd eenu u bixinay tilmaamaha wanaagsan ee qofka muslimka ah. waxaynu maanta qaadanaynaa darsigeennii ama casharkeennii 13aad ee ku saabsan duruustaas ee silsiladda taxanaha ahayd. darsiga maanta aynu qaadan doonno ama mowduuca aynu qaadan doonno iyo dhaqanka aynu qaadan doonno maanta yacni waxa weeye ka mid a dhaqamada wanaagsani waa dhaqanka loo yaqaano alcafw ama saamixidda. qofka muslimka inuu noqdo qof caafi ah, yacfu can innaas, dadka iska saamaxa oo khuluqa cafiska la ihahdo ku sifaysan. cafigu walaalayaal iyo dhaqanka la dhahdo markaa cafisku waxa weeyaan waa atajaawus can idamb waalkhata, waa in dadkii laga dhaafo qaladkay kugu sameeyaan ama dhacdhaca dadka u tarki alciqaabi calayh, iyo ka aargoosiga laga aargoosan lahaa inuu qofku iska daayo ayaa cafis la dhahdaa. ilaahina subxaanahu wa tacaala dhaqankaasi aad iyo aad ayuu u ammaanay allah, waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin buu ilah yidhi. muuminiintu waa kuwa dadka iska saamaxa markay ku qaldamaan ama nafahooda ay ku xadgudbaan, waa kuwa aan ka argoosan ee iska saamaxa. wallahu yuxibu almuxsiniin, ilaahina wuxuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala dadka muxsiniinta ah ee samafalayaasha ah buu rabbi jecel yahay subxaanahu wa tacaala. nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waa ka inoo tilmaamay ama inoo sheegay dhaqanka cafisku inuu ka mid yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa, waa sifo ka mida sifaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala. rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam leylat alqadr qofku hadduu ku beegmo waxyaalaha uu ku ducaysanayo, rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu faray markii caaisha tiri ka waran rasuulkii allahu haddii aan ku beegmo leylat alqadr maxaa idhahdaa? nabigu wuxu uhi waxaad tidhahdaa allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. ilaahu waxaad tahay alla dembi dhaaf badan oo cafis badan, inaad wax cafidana waad jeceshahay, facfu canii isaamax ku dheh ayaa nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam. allah sidaa u weydiisa jala wacalaa allahuma acfu canii, ilaahu isaamax dheh. cafisku walaalayaal waa dhaqankii rasuulkeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. cabdillahi ibn mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi waxaad ii moodaa inaan arkayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo qoomkiisii ay garaaceen, dabeedna wejigiisii ay ka dhiijiyeen, dhiiggana markaa wejigiisa ka masaxaya isaga oo leh allahuma rabbi kfir lii qowmii fa inahum laa yaclamuun. xadiidka muttafaqun caleyh, bukhaari muslim baa soo saaray. ilaahow dembi dhaaf qoomkaygu fa inahum laa yaclamuun, waxba ma garanayaan, xaqa aan ugu yeedhayo ma garanayaan. sidaa aawadeed nabiga sala allahu aleyh wasalam xadiidka saxiixi muslim ku sugan markii rasuulka lagu yihi rasuulka allow udcu cala almushrikiin, gaaladan habaar ina dhibaysa ee diinta ilahay hor taagan jidgoynta inoo gelaysa, wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam inii lam ubcath lacaanan wa inamaa bucithtu raxma. layma soo saarnay inaan noqdo mid nacdal badan oo cayb badan oo habaar badan oo afxun, laakiin waxaa la ii soo saaray raxma, naxariis inaan noqdo baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. rawaadka qaarkood rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi waxaan ka rajaynayaa kuwa dhabaradooda ku jira inay ka soo baxaan man yansuru hada diin, qof diintan u gargaaraa inay qaar diintan u gargaaraa inay ka soo baxaan ayaan rajaynayaa
ayaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. sidaa awgeed walaalayaal cafisku waa khuluqu nabiyi sala allahu alayh wasalam, bal waa khuluqu alambiyaa, waa dhaqankii ambiyada oo dhan. ilahay waa ka qur-aankiisa inooga warramay. nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam mithaal iyo tusaale aad iyo aad u qiimo badan buu ilahay nebi yuusuf inooga sheegay suuratu yuusuf. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay markii walaaladii ceelka ay ku rideen ee ceelkii ay ka saareen dadkii markaa oomanaa ee ceelka ka dhaansanayey, waati markaa meliku misr loo geeyey. boqor buu sidii ku noqday, isagoo boqora iyagoo raashin doonaya ayay u yimaadeen. markii qisadii dheeraad dhex martay waxay ogaadeen inuu yahay walaalkood oo yuusuf uu yahay. dabeedna waxay idhahdeen yani adigaa yuusuf ah, markaasay calaacaleen. dabeedna nebi yuusuf calayh salaam ilahi wuxuu inoo sheegay safxun jamiil, dhaafitaan iyo cafis aad u qiimo badan iyuu nebi yuusuf la yimid calayh salaam. allah wuxuu qur-aanka inoogu sheegay, nebi yuusuf wuxuu yihi laa tahriiba calaykum alyowm yakfir allahu lakum wa huwa arxamu araaximiin. wax canaanihi dushiina ma aha, maanta cidna idin canaanan mayso, ilaahay baa aniga iyo idinkaba inoo dembi dhaafi doona. allahna waa mid naxariis badan, kuwa naxariistana ka ugu naxariista badan weyn ilahi subxaanahu wa tacaala. waxaa walaalayaal rasuulku calayh salaatu wasalaam ka sugnaatay isagoo nebigu hurdo maalin geed harhkii ayaa rasuulku seeftiisii uu ka laalaadiyey geedka jiridiisii baa nin gaali soo maray. saxaabaduna markaa rasuulka ay ka fog yihiin oo meel waadiye ama toga saxaabadu ay degan yihiin. dabeetana seeftii buu qaaday, rasuulkana wuu toosiyey calayh salaatu wasalaam. dabeedna waanu garanayay nebi maxamed inuu yahay. qaala yaa muxamed man yamnacuka minii, yaa maanta iga kaa celinaya ayuu yihi. waxba ma haysatid hub, waad faramaran tahay, yaa iga kaa celinaya. rasuulku wuxuu yihi isagoo degan oo sugan oon baqanayn, allah ilahay baa iga kaa celinaya. ninkii waa gariiray, dabeedna waxay markaasi uu baqay, yacnaa gacmihiisaa ruxmay, dabeedna seeftii baa ka dhacday. rasuulka ayaa qaaday. nebigu wuxuu yihi man yamnacuka minii, adiga yaa iminka iga kaa celinaya. isagu nin mu'mina ma ahayn, kaafir buu ahaa. dabeedna wuxuu yihi kun khayra aakhidin, mid seef qaato cid ka guulaysta ka u wanaagsan noqo, oo yacni isaamax ayaa uu yidhi. dabeetana rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi islaam oo islaamka qaado. wuxuu yihi qaadan maayo, laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa cid kugu soo duulaysana inaanan soo raacin, cid kugu soo duulaysa inaanan soo raacin, aniguna aanan kugu soo duulin. nebigu uu saamaxay calayh salaatu wasalaam. dabeetna rasuulku uu cafiyey nebigu calayh salaatu wasalaam. ninki wuxuu ku noqday qoomkiisii, markaasaa waxay dhi xageed ka timid. wuxuu yihi waxaan idinkaga imid min cindi khayri innaas, dadka kii u wanaagsanaa agtiisii ayaan idinkaga imid. rasuulka calayh salaatu wasalaam waxaa ka mid ah cafiskiisii sida ku sugan yani waxa weeyaan bukhaariyo muslim ku sugan. nebiga calayh salaatu wasalaam gabadh yahuudiyada ayaa waxay u keentay lax shiilan ama duban oo ay soo sumaysay. rasuulku dabeedna calayh salaatu wasalaam yani iyadoo yani calaa sabiili hadiya inay u hadiyeynayso kale iska dhigaysa ayay u keentay. rasuulku sala allahu alayh wasalam markii uu doonay inuu markaa hilibkii goosto ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday, hilibkii ayaa la hadlay. rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi gabadha yahuudiyadda in la keeno nebigu amray calayh salaatu wasalaam, waa la keenay. rasuulku wuxuu yihi lima facalti dalik, maxaad saa u samaysay? waxay tihi waxaan doonay inaan ku dilo ayaan doonayey. deete nebigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam ilaahay ma aha mid igu kaa sallidaya subxaanahu wa tacaala. saxaabadii waxay doonaan gabadhii inay ka argooyaan oo ay qisaasaan ay dilaan, laakiin nebigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam ha dilina buu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam. waanu iska saamaxay rasuulkeenu sala allahu alayhi wa aalihi wa saxbihi wasalam. sidaa aawadeed walaalayaal dhaqanka la dhahdaa cafiska iyo alcafwu waa dhaqan aad iyo aad u qiimo badan. dadka muslimiinta ana inay ku sifaysnaadaan allah iyo rasuulkiisuba ayna amreen calayhi salaatu wasalaam. sidaa aawadeed rasuulkeenu sala allahu alay wasalam wuxuu inoo jideeyey ama uu inoo dhigay khayra mithaal, tusaalaha ugu wanaagsan buu rasuulku sal allahu alay wasalam inoo dhigay. yowma fatxi maka, markii nebigu maka qabsaday calayhi salaatu wasalaam, rasuulku sala allahu alay wasalam quraysh buu isugu yeedhay. markii quraysh lasoo ururiyey, nebigu wuxuu ihi yaa macshara quraysh ma aladii tadunnuuna anii faacilun bikum. quraysh ururkeediiow maa tadunnuuna anii faacilun bikum, maxaa filaysaan maanta inaan idinku samaynayo? waxay dhahdeen yacnaa anta yacnaa akhun kariim, qaaluu khayran akhun kariim wabnu akhin kariim. wanaag baanu dee kaa filana bay dhahdeen, wanaaggaasaad ku caan baxday, khayr baanu kaa filanaa, waayo waxaa tahay walaalo wanaagsan, waxaa ku dhalay walaal wanaagsan. nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ihi idhabuu fa antum tulaqaa, iska taga baa rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam, qaar la saamaxay oo la sii daayey ayaa tihiin. allah wuxuu qur-aankiisa ku yihi walaalayaal isagoo cafiska inagu dhiiri gelinaya wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu fa ina allaha gafuuru raxiim.
haddaad dadkii idinku qaldamay ama dhibaatada idinku sameeyey aad saamaxdaan oo ka jeesataan oo markaa u dhaaftaan ilaahay waa mid dembi dhaaf badan naxariisna badan dembi dhaafka ilaahay subxaana wa tacaala uu idin dembi dhaafayo ayaa ka ballaadhan ka idinku aad saamaxaysaan allah wuxuu ina amray subxaana wa tacaala in cadhada qofku uu qarsado oo markaa uu iska saamaxo dadka waalkaadimiina alghayd waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin buu ilah yidhi muuminiintu waa kuwa cadhada qarsada cadhadooda liqa dadkana saamaxa wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahayna waa mid jecel dadka samafalayaasha buu rabbi yihi subxaana wa tacaala qisaska yani cajaa'ibka waxaa ka mid ah axadu saalixiin ayaa wuxuu u diray yani nin addoon u ahaa buu u dirtay biyo kulul inuu u keeno biyihii baa dabeedna addoonkii markaa yani waxa weye ka yar daatay waxay ku dhibceen lugtii markaa sayidkiisii dabeedna aad buu u cadhooday inuu markaa wax ku sameeyo ayuu doonay dabeetana wuxuu yihi addoonkii baa ku yidhi waalkaadimiina alghayd allah wuxuu yihi kuwa cadhada qarsada nin saalixa ayuu ahaa sayidku wuxuu yihi kadamtu haydii waan qarsaday cadhadeedi khalaas mar haddaad ayadda ii sheegtay fa ana utabiquhaa waan ku dhaqmayaayo cadhadeeda waan qarsaday qaala waalcaafiina can innaas dadka kuwa yacna waxa weeyaan yana saamaxana ilaahay uu raaciyey oo fadligu qaydka qura in la qarsado kuma gaar ahae dadka markaa in la saamaxana waa la mid markaasa wuxu uhi waqad cafawtu cank waanan ku saamaxay qaala wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahay kuwa samafalayaashaana uu jecelyahay qaala qad ictaqadtu fa anta xurun liwajhi illah waan ku xoreeyey ixsaankaa ilaahay ammaanina waan la imidoo waan kuu samafalaya waanaan ku xoreeyey ilaahay hortii baad xor u tahay iska tag ayuu yihi saasay ahaayeen dadkii wanaagsanaa walaalayaal qaar yacni markaa ugu sifaysan khuluqa iyo dhaqanka cafiska ah ugu sifaysan allah waa ka qur-aankiisa ku yidhi idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim ku difaac oo kaga jawaab wixii dhib laguu geysto iyo dhibaato laguu geysto ta wanaagsan kaga jawaab waxaad arki doontaa kii adiga iyo isaga xumaantu idiin dhexaysay iyo cadaawaddu isagood moodo addoon yani waxaan jeedaa saaxiib yani xamiim ah oo aad iyo aad kuugu dhow sida awooda walaalayaal cafisku cizi buu keenaa cafiska fadligiisa waxaa ka mid ah cafisku wuxuu keenaa cizi iyo sharaf ayuu keenaa waa ka rasuulku yihi salى اllahu alayh wasalam xadiidka saxiix muslim ku qoran maa naqasat sadaqaة min maalin wma zaada allahu cabda bicafwin ila ciza wma tawaadaca axadu lilah ilaa rafacahu اllah sadaqo iyo sadaqadu hantida iyo xoolaha qofka muslimkaa waxba kama nuqsaamiso qofkana ilaahay subxaana wa tacaala uguma ziyaadiye addoonka cafis ilaa cizan sharaf mooyaane wax kale ilaa cizan sharaf buu ilaahay subxaana wa tacaala ugu siyaadiyaa ilaahayna qof isma dhuldhiga addoon ilaahay daraaddii isma dhuldhigo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala kor ayuu u qaadaa ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa rasuulku ugu bishaareeye fadliga cafwiga ee saamixidda ka mida waxaa nebigu yihi calayh salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay soo saareen rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alيه wasalam man kadama gaydan wa huwa qaadiru calى an yunfida qofka yacnaa qariyo cadho qarsada isagoo kari karaya in uu waxa weeyaan cadhadaasi fuliyo dacaahu اllahu calىa ru'uusi اlkhalaa'iq xataa yukhayirahu اllahu min alxuuri maa shaa ilahay wuxuu uga yeedhaa addoommaha madaxoodu ilahay uga yeedhaa maalinta qiyaama khalaa'iqda oo dhan oo joogta ayaa ilahay u yeedhaa subxaana wa tacaala dabeedna ilahay wuxuu dooransiiyaa min alxuuri maa shaa xuuralcaynta wixii uu doono ti alla ti uu doono ilahay dooransiiyaa subxaana wa tacaala wuxuu qofku halkaa ku gaadhay waa khuluqa iyo dhaqanka cafiska cafisku walaalayaal waa dhaqan aad iyo aad u fadli badan oo aad u wanaagsan ilaahay uu ammaanay muuminiinta ku ammaanay rasuulkuna uu ina amray kuna ammaanay cidda ku sifaysan nebigu sala allahu alay wasalam ajriga intaa leegna loo sameeyey waa dhaqan ay ku sifaysnaayeen dadyoogii wanaagsanaa ee markaa saalixiintii rasuulka calayh salaatu wasalaam wakhtigiisii noolaa iyo kuwii ka dambeeyeba ilaahay haynaga yeelo kuwa cafiska iyo saamixidda ku dadaala oo aan kala aargoosan ama nafahooda aan u aargoosan ilaahay daraaddii dadka u saamaxa kuwa ilaahay ammaanee waalcaafiina can innaas kuwa dadka iska saamaxana ka mid noqda allah inaga yeelo wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatuh إلهي وخلاقي وحر